بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا يوتيوب كان قدام نيسان وباركة 252 waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub kaas aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona kulan ka tirsan horyaalka liiga ayay caawa ciyaari doontaa waxay u bixi doontaa kooxda kubadda cagta Granada intaan barnaamijka u gudgelin hadda janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ku soo gaaraan muuqaaladina soo socda muuqaalkan share maasanidin Barcelona ayaa caawa hadal la ciyaaraysa Granada garoonka Camp Nou Stadium ayay ku soo dhaweey doontaa kulankooda ugu horeeyay ee La Liga ee sanadka 2020 iyo markoodii ugu horeysay oo hogaaminayo macallinkooda cusub Kikian Setien shantii kulan ee u dambeysay ee wada ciyaaran kooxaha Barcelona iyo Granada afar kamid ah waxaa badisay kooxda kubadda cagta Barcelona hal kulan waxaa badisay kooxda Granada halkii ku wada jiraan labada kooxood kaalmaha horyaalka La Liga kooxda kubadda cagta Barcelona kaalinta labaad ayay ku jirtaa 40 dhibcood ayay leedahay Real waxa la dheeshay kaalinta koowaad ayay gashay Barcelona caawa haddii ay badiso kaalinta koowaad ayay gali doontaa kooxda Granada kaalinta 10aad ay ku jirtaa 27 dhibcood ayay leedahay ciyaartooyda caawa ka maqnaan doonaan kooxda kubadda cagta Barcelona Suarez iyo Dembele ciyaarta caawa dhaawacyo ayay ku sheegi doonaan halka De Jong ciyaarta caawa rooso ayuu ku maqnaan doonaa ogeysiiska ciyaarta caawa Barcelona vs Granada garoonka Camp Nou Stadium saacad ciyaarta la daawan doono waa 5 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika shaxda macquulka ah laga yaabo in kooxda kubadda cagta Barcelona caawa ku soo gasho waa Stegen Roberto Piqué Umtiti Jordi Alba khadka dhexe Busquets Rakitic Arturo Vidal weerarka waa Griezmann Messi Ansu Fati taageere shaxda jeceshahay in caawa ku soo gasho kooxda kubadda cagta Barcelona dhanka hoose noogu soo reeb commentiga waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan soo saadaal ciyaarta caawa Barcelona iyo Granada fadlan hadda janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro intaan muuqaalka isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo